بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة. الحقيقة وحل جوجة وقتigii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku murmi lahaayeen wixii ay ku heshiiyeen fadhigii hore. waxyaabaha ay ku murmayaan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku waxay ku heshiiyeen madaxweyne ku-xigeen. ma dhicin barashar madaxweyne xasan sheekh ku dhacay oo isaga markii horeba balaan-bii u ahaa inuu la yimaado prime minister uu eryi karo ayaa balaan-biigiisu ah, laakiin ma ahayn heshiiskii isaga iyo maamul goboleedka. waa kow. waxaa kaloo ii muuqda inay ku heshiiyeen intaan la geyn baarlamaanka waxaanaynu ku heshiinay inaynu mar labaad isaga nimaadno. iyadana madaxweynuhu garabku ku dhuftay. waa laba. guddiga doorashooyinka inay ka heshiiyaan waxyaaba ka soo burqanaya heshiiskii koowaad ayaa hadda qarxi doona. maxaynu markaa hasdaynu nahay ummaddii soomaaliyeed maxaynu ku dhex jiraa? waxaynu ku dhex jiraa hore haw socon. waxaynu ku dhex jiraa waxaynu ku heshiinay aan keligay u taliyo. waxaynu ku dhex jiraa aan dib u noqonno. waxaynu ku dhex jiraa sinaariyo aynaan garanayn. labadii sannadood bishan may bay madaxweynaha ugu buuxdaa. labaa u harsan. mushkiladii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku waa kow oo aan puntland ku jirin. heshiiska madasha wada tashigu waa konsees, ma aha aqlabiyad, mana aha cod. puntland waxeeday la maqan tahay hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay. intii kale iyo dowladda federaalku ma qabsoomayaa shirkii 20 lagu ballamay? laa yaclamu alqayba ila allah. ifafaalihiisa se iima muuqdo. qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa wax allaale iyo wixii madashii la baxday badbaado qaran anigu hoog iyo halaag qaran baan u yaqiin
una aqaanaa wax alla wixii ay dowladdii hore ku eedeynayeen dhinac noogama baydhin haddii ay wax sameeyeenna way koobi gareeyeen oo haddaadan adigu aadan hal abuurka lahayn ee nin kale leeyahay sidii aad rabtay wax uma dhacaan maxaa yeelay fikirka adigu ma aadan lahayn curintiisana ma aadan lahayn hal abuurkana ma aadan lahayn waa koobi waa dowlad dictator ah iyadaa ku tilmaamaysay dowladdii ka horeysay dictator tana hadday ahayd tanaa ka dictatorsan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa nimankan aad u taqaanin beesha caalamka anigu aan u aqaan beesha lixaad iyagana dagaalkoodii dee waaba cad yahayba 3 maalmood oo isku xigta bay 3 statement maraykanku soo saar muxuu maraykanku markaa u jeedaa wuxuu daba joogaa heshiiskii ay dowladda federaalku ay la gashay turkiga very simple laa aqal walaa aktar dagaalkaasina waa ina sugayaa ama wuu inagu bilowday awal way kala dambayn jireen dagaalka maamul goboleedyada iyo beesha lixaad iminka way isbarbar socdaan ومن آياتي نصيب ضر قضب كان انتاس ايام كضافية الحقيقة قبل ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa tii way hurdaa waxaana seexiyey maslaxad shakhsi waxaa seexiyey qabaliyad waxaa seexiyey oo waxoo dhan ka sii xun muqdisho hagaagi weyday dadkii markaanu carta ka nimi aanu islahayn haddii caasimadii la tago oo intaa soo sano la kala maqnaa way hagaagaysaa masaalix bay u baydheen tolla ayay bay u baydheen dekadda annagaale bay u baydheen annagaale waxan bay u baydheen haddii la kala adkaado ciddii adkaataa dastuur samaysa bay u baydheen anigu xabad beena ku dari maayo waa inta dhegahayguna maqleen indhahayguna arkeen laguma noqonayo dowlad iyadoo iswada weyday yaa wiida loo rogi doona iswada weydeen marka dee anigu ilaahay waxba lama ogey haddayna sidatan si daanta aydnan la iman zibini cid dambe iyo Soomaali dambe iyo wax isu yimaada iyo dowlad cid dhisata anigu garan maayo sida ay ku iman doonto الحقيقة ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار